بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku soo jirnay kitaabkii minhaajka ee fiqhiga islaamiga ee uu qoray imaamu nawowi raxmatullaahi tacaala calayhi. rubuca nikaax ayaan ku soo jirnay. waxaa inoo dambeeyey dihaarkii markuu iyo axkaamtiisii. casharkeennu maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaa la yidhaha kafaarada ayuu ku saabsan yahoo markii dihaarkii uu asaxo oo ninkii naagtii uu ku shabooxa hooyadii ama walaashii ama gabadhiisa waxyaabihii ka dhalanayo kafaaradu ay ka mid tahay ayaan halkan kaga hadlaynaa kafaaradii. sheekhu wuxuu yihi marka kitaabulkafaarati, kafaaradii kitaabkeedii weeye. xagga luqada kafaaro waxaa la yidhaha assatru, maxaa yeelay waa lisatrihaa, yacni asturid wax la qariyo, waa lisatrihaa adanba. kafaarada marka la sameeyo dembigii bay asturaysaa. inay dembigii tirayso iyo inay dembigii fudaydinayso labadaa waa midun. maxaa yeelay kafaarada meeshay doontaba ha noqotee laba culimmadu isugu khilaafsan yihiin inay tahay zawaajir, waxa dadka wax ka hor istaagaya sida xuduudda iyo tacaasiirta oo kale, iyo markaa macnihii satriga meeshii ma imanayo, iyo inay tahay jawaabir mid wax kabaysa oo khalalkii dhacay kabaysa sida sujuudu sahwiga waxu kabto oo kale. labadaas ayay isugu khilaafsan yihiin. oo marka aan leenahay waa satri, waa markii ay tahay midda wax kabaysa markaa weeyaan. kitaabka eeg marka yushtaradu waxaa la shardiyaa niyatuhaa, kafaaradii in la niyeysto. markuu addoonka xoreynayo inuu niyeysto inuu kafaaradii ka xoreynayo, laakiin waajib lagu leeyahay inuu gudayo keliya hadduu niyoodo ma noqonayso. maxaa yeelay waajibku wuxuu noqon karaa nadar uu nadray oo cidqigii nadarka ahaa, xoreyntii wax la xoreynayay la nadray, ama quudintii la nadray ayay noqon kartaa. laakiin kafaaro inuu wax ka xoreynayo taa ayaa la shardiyaa. laa tacyiinuhaa, kafaaradii in la magacaabo oo kafaaradii dihaarka, kafaaradii qatliga dilka inuu ka xoreynayo addoonka inuu sidaa u magacaabo lama shardiyo. maxaa yeelay inta badan kafaarada khislooyinkeedu waxay u iilanaysaa, waxay la macno tahay sidii wax la gudayo oo kale. saa darteed baa waxaa lagu kaaftoomay biasli niya ayaa lagu kaaftoomay. wa khisaalu kafaarati dihaar, kafaarada la yidhaha kafaaratu dihaarka khislooyinkeedu bimacnaa arrimaha ay ka kooban tahay. wa khisaalu kafaarati dihaar, dihaarkii hadda aan soo marnay cashiradii hore, labadii cashire hore aan kaga soo hadalnay kafaaradiisu, kafaarada khislooyinkeedu bimacnaa arrimaha ay ka kooban tahay, canaasirta ay ka kooban tahay waa 3. midka ugu horeeya cidqu raqabatin, addoon xoreynteed weeye, qoor xoreynteed. cidqu raqabatin, qoor oo la xoreeyo. kabacdi waxaa ku xiga soonkii, kabacdi waxaa ku xiga in wax loo qoodiyo. addoonta oo mu'minatin, oo rumaysay ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysay. addoon gaal ah haddii la xoreeyo kafaaradii kaama gudayso. maxaa yeelay aayadna iyadoon waxba lagu qeydaynin bay soo aroortay oo waa midda mujaadalo ku jirta. aayadna iyadoo addoontii lagu qeydaya inay tahay mu'minad ayay soo aroorto, waa midda suuratu nisa yacni ku jirta oo kafaaratulqatliga ka hadlaysa. saa darteed almudlaqu yuxmalu cala almuqayadi, yacna midda la idlaaqeen waxba lagu qeydin waxaa lagu xambaarayaa midda soo aroortay iyadoo wax lagu qeydayo, taa ayaa, oo mu'minnimada lagu qeydayo, taa ayaa lagu xambaarayaa. addoonta oo bilaa ceebin, ceeb la-aana, ceebka oo yukhillu wax u dhima bilcamali, shaqada, iyo walkasbi, kasabka, yacnaa ceeb wax u dhima aan lahayn, wuxuu dhimid weyn. maxaa yeelay
addoontii oo ceeb leh, ceebkaasoo ayna ka shaqaysan karin, waa inoo iman doontaa. maalan lug bay laadahay, ama labada lugood bay laadahay, ama aafo kale ayay qabtaa oo uuna la shaqaysan karin addoonkii. ka haddii la xoreeyo ma noqonayo. bilaa ceeb waa inuu yahay, ceeb la-aan. ceebka oo yukhilu wuxuu dhimaya bilcamali shaqada iyo walkasbi shaqada. maxaa yeelay ujeedadu waxa weeye addoonkii in la kamilo xaalkiisa ayaaba loo xoreynayaa, si uu ugu faaruq noqdo oo uu ugu madax bannaanaado shaqooyinka dadka xorta ay qabanayaan inuu qabto. taasina waxay ku xidhan tahay inuu dee quudkiisa la soo bixi karo, ayay ku xidhan tahay, oo naftiisa wax ku filan uu keeni karo. labadani maxay ku kala duwan yihiin? bilcamali walkasbi, labadaa laysku cadfay. labadaasi waxaa dhici karta culimmadu yidhaahda inay tahay cadru radiif oo kala dhawaq isku macno. matalan bilcamali shaqada, walkasbi shaqada, inay sidaa ay tahay. waxaa kaloo dhici karta la yidhi inay tahay cadful caam cala alkhaas, oo kasabka ayaa caam ah, camalkuna waa khaas. matalan tusaale ahaan camal maxaa la yidhaha? de wixii gacanta aad ka qabato aada soo samayso. laakiin kasbi waa wixii hanti oo qofka soo gasho uu soo xoogsado. marka kasabkii wuxuu noqon karaa waxaadan gacanta ka qabanin oo aadan samaynin. wixii matalan lagu siiyey oo kale waa kasab naadira. wixii meel aad ka hesho sida aad ku yeelatay waa kasab naadira. marka kasabka ayaa caam ah oo macno weyn. camalka oo wixii la qabanayeyna ama camalu yad ah, kaa isaguna waa khaas. taana way dhici kartaa baa leeyi. waxaa dhici karta inuu yahay cadfu mugaayir, inay kala duwan yihiinoo loola jeedo bilcamali ceebta oo xagga camalka ah wixii jidhkeeda nusqaan oo ku jira. ceebta oo xagga kasabka ana in loola jeedo wixii macno ahaan oo sida caqligii oo naaqus oo kaliyo, taa in loola jeedana way dhici kartaa. haddaba sidaa haddaynu qaydnoon ku qaydnay ceeb oo camalka waxu dhimi waa inayna lahayn, laakiin ceebkii kale dhib ma leh. fa yujzi-u waxaa gudi oo kafaaradii noqon sagiirun mid yar oo hadda dhashay, walow caqiba wilaadatihi, markuu saa usoo dhacaba ha la xoreeyee, kaasi kafaaradii wuu noqon addoonkaasi. maxaa yeele waxaa la rajaynayaa inuu weynaado. laakiin midka da-dee gaboobay isagii u baahan in la xanaaneeya, kaa haddii la xoreeya ma noqonay. laakiin waxay dhaheen culimmadu waxaa sunno ah inuu yahay baaliq oo qaan gaadhay addoonka la xoreynaya ama addoonta. maxaa yeele waxaan ka baxaynaa culimmada yidhi waxaa shardi ah inuu qaan gaadhay khilaafkooda ayaa laga baxaya. wa aqracu mid oo aan tima lahayn, ama bidaardhe adigu, ama timihiiba aan lahayn oo madaxa aan tima ku lahayn, cudur ku dhacay dartii ayaa maaragtay ayaa gudaya. wa acraju mid oo dhutinaya ayaa gudaya, kaasoo yumkinuhu ay u suuroobi mashaqo la-aan iyo dhibaato la-aan tibaacul mashi socodkiisu inuu israacraaco. wuu dhutinayaa, laakiin socodkii inuu israacraaco waa u suurtagal, kaana wuu gudayaa. maxaa yeele labada, inuuna madaxa timo ku lahayn iyo inuu dhutinayo, dhutintaasoo socodkiisa aan waxba u dhimaynina tibaacul mashi socodkuu israacraacayo, waxaa yar saamaynta ay ku leeyihiin xagga shaqada ayaa iska yar. laakiin hadduuna socodkii israacraacaynin, taa markaa ma gudayo weeye. sheekha waxaa la yidhi kitaabkiisa wuxuu ku qoray meelaha qaarkood khadkiisa imaam nawowi wowgoo laga tago wa acraju, wa aqracu acraju, oo saa la yidhaha. wa aqracu mid bidaar leh, acraju oo weliba dhutinayo labadaaba wada leh ayaa gudaya. saasaa kusoo aroortaa layidhi khadkiisa. taasoo ina tusinaysa hadduu mid qura leeyahayna inay kasii awleysan tahay. wa acwaru midoo ila ayaa gudaya. maxaa yeelay ili-idu waa saamaynta ay ku leedahay shaqada yacni ayaa iska yar. laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen haddii ishiisii kale caafimaadka qabtay araggeedii uu dacfi ku yimaado oo shaqada ay waxu dhimayso waxu dhimid oo cad, markaa ma gudayo. wa asamu midoo dhagala ayaa gudaya. wa akhrasu midoo aan hadlaynin oo faraha uun dadka ugu ishaara laakiin wax maqlaya, hadalkii laga xidhay, kaa ayaa gudaya. wa akhshamu midoon waxba urinaynin oo urkii waayey ayaa gudaya. wa faaqidu anfihi wa udunayhi
kii sanka iyo labada dhagood go-naa faaqid kii waayey faaqidu anfihi wa udunayhi ayaa gudaya wa asaabici rijlayhi wa faaqidu asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda kii waayey ayaa gudaya iyo xataa kii ilkihiisa waayey maxaa yeeley intaasi midna shaqada waxba uma dhimayso isagoo sanka go-an oo dhaga go-an ayaa laga yaabaa inuu kaa xoog bato oo kaa shaqo badiyo faraha lugta isagoo go-an ayaa laga yaabaa inuu shaqadii dee ka badiyo kuwa faraha qabo laa zaminun kii curyaanka ahaa zamin waxaa weeye qofka ay ku dhacday aafo oo fadhiisisay oo meeshay doontaba ha kaga dhacdeen ayaa zamin la yidhaah af soomaaliga marka waxaa tidhaha naafo ama curyaan waxaa tidhaahdaba laa zaminun kii curyaanka ahaa ama naafada ahaa kaa isagu gudi maayo walaa faaqidu rijlin kii lugta la-aayee lugta waayey waxaa lamid a hadduu gacan la-yahay maxaa yeeley labaduba waxay wuxu dhimayaan camalkii shaqadii iyo wuxuu dhimid oo cad ayay wuxu dhimayaan ow khinsarin wa binsarin muxuu yidhi laa ow faaqidu khinsarin faryarada iyo wa binsarin faadumo miyaan dhahnaa kii waayey oo min yaddin isku gacana kaa isagana ma gudayo ow anmulatayni faaqidu anmulatayni laba xubnood oo min gayrihimaa khinsar iyo binsar kayrkooda kii waayey isagana yacni ma gudayo yacni khinsar faryarada xaggayga soo eega dee waa taqaanaa waa faryaro binsar iyadana waa taa faryarada ku xigta tanna waa wusda tanna waxaa weeye sabaabo kanna waa ibhaam xagga carabiga marka dee innagana maxaan odhan jiray tan faryaro tanna maxaa faadumo miyaa fardhaxo iyo farmurugsato iyo suulgomash miyaa la yidhaahaa mise suulgomad ma aqaan idinkaa sixi doona marka taasaa loo jeeda marka khinsar iyo binsar labadaasaa labadiiba go-an oo min yaddin isku gacan ah maxaa baxay haddii gacantana faryaradii maqan tahay gacantana ay faadumo ay maqan tahoo binsartii ah taa marka culimmadu dhibaato malay dhaheen iyaga tajribadooda ay tajribeeyeen maxaa yeelay shaqadii wax saasa ma yeelayso ayay yidhaahdeen ow faaqidu khinsarin wa binsarin faryartii iyo faadumo kii ay ka go-nayd oo min yaddin isku gacana ow anmulatayni ama laba xubnood saad la socotaan fartu waa 3 xubnood yacni 1 iyo 2 iyo 3 suulka isagu waa 2 xubnood fartu laakiin fartii la arkaba 3 xubnood weeye marka 2 xubnood xubintaa iyo xubintaa maalan kasoo qaad fartaas farmurugsatada innaga aan dhahno labadaa xubnood kii ay go-nayd oo khinsar iyo binsar aan ahayn faryari iyo faadumo aan ahayne ama fardhaxo ah ama farmurugsato ah labadaa kii 2 xubnood ay go-an tahay oo farmurugsatadii baa 2 xubnood go-an ama fardhaxadii baa 2 xubnood ee ugu sarreeya ayay go-an yihiin kaa isagana waxaa weeye ma gudayo maxaa yeeley saameyn weyn sida la tajribeeyey ayay shaqada oo la qabta ayay ku leedahay ninkii labadaa maqan ow anmulatayni faaqidu anmulatayni 2 xubnood kii waayey oo min gayrihimaa khinsar iyo binsar kayrkood oo suulkii iyo sabaabadii iyo wusdadii qultu waxaan idhi buu ihi imaamu nawowi ow anmulati ibhaamin ow faaqidu halkaas soo geli ow faaqidu anmulati ibhaamin suulka hal xubin kii waayey mooyeen oo kaasina ma gudayo wallaahu aclam suulku waa 2 xubnood isagu oo keliya marka haddii xubintaa kore ay maqan tahay isagu wuxuu la mid yahay fardhaxadii oo 2 xubnood ay ka maqan tahay ayuu la mid yahay saas ayuu yihi imaamu nawowi oo ma gudayo walaa harimun midoo gaboobay kaasoo caajizun aan qaban karin yacna camalkii aan qaban karin kaasina isagana ma gudayo ma waxaa jira yani harimku macnihiisu waxaa weeye qofka oo yani darajadii ugu sarreysay ka gaadhay xagga da-da oo waayeel noqda marka ma waxaa jira harim oo aan caajiz ahayn oo wax qaban kara waxay dhaheen culimmadu waxaa dhici karta inuu sanco yaqaano sancadaasu xoog badan aan u baahnayn oo markaa uu qaban maalan uu qaban karayo ayaa dhici karta saasaa loogu qayday qaarna waxay dhaheen maya sifadan oo la yidhi caajizun waxaa la yidhahaa sifa kaashifa oo wixii hariminta ay inoo caddaysay
unbay sii caddaynaysaa oo ay leedahay harimka oo caajizun, ilan wuuba cajizo waa la yska garanayaa, ma awoodo bimacnaa inuu wixii qabto. waman akharu waqtihi, walaa man, meesha allaa soo geli, walaa man duulla ma gudayo kafaaradii akharu waqtihi majnuunun, waqtigiisa inta ugu badani uu majnuun yahay. hadalkaas isma qabanayo mubtadihi khabarka. akharu waqtihi majnuunun, waqtigu majnuun ma noqdo. yani waxaa loo jeedaa cibaarada waxaa ku jira majaaz, yani tajawus baa ku jira. waxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay man huwa fi akthari waqtihi majnuunun, man huwa fi akthari waqtihi majnuunun, qofkii waqtigiisa inta ugu badan waalan kaana isaguna ma gudayo, oo marmarka qaarkoodna miyirsanaya, maxaa yeelay dee shaqadiibuu dhan ayuuna qaban kareen. wa mariidun walaa mariidun, mid xanuunsanaya ma gudayo, kaasoo laa yurja aan la rajaynaynin markaa iyadee wax la xoraynayo inuu xanuunkaa ka bogsanayo. kasoo qaad faalij baa ku dhacay ama maxameehee waxa weeye waxaa ku waajibtay qisaas, markaasaa tiirkii toogashada ayaa loo dhaqaajiyey. markaasuu deedna yidhi ninkii lahaa addoonka iska lahaabaa yidhi waan xoreeyey, kafaaradaydii baan ka xoreeyey. kaasoo kale ma noqonayo, maxaa yeele waa nin socdayba weeye kaas. ama xanuunka haddii la rajaynayo inuu ka bogsanayo, xanuun baa haya, laakiin waa xanuun laga bogsado oo la rajaynayo in laga bogsado uu ka bogsanayo, kaa wuu gudaya. fa in bara-a, hadduu bogsoodo, wuxuu u jeedaa qofkii oo qaba xanuun oo aan la rajaynaynin inuu ka bogsado, kasoo qaad faalij oo kale, qalalkii ayaa ku dhaco, dhinac baa qallalan, markaasuu deedna kafaaradii ku xoreeyey. fa in bara-a, marka hadduu bogsado qofkii aan la rajaynaynin xanuunkiisa inuu ka bogsado, markii la xoreeyey oo kafaaradii laga xoreeyey kadib hadduu bogsado, baana waxaa caddaato oo inoo caddaatay alijzaau gudid, inuu guday oo kafaaradii uu ka gudaa inoo caddaatay, fila saxi qawi haddii aan qaban. maxaa yeelay waa likhada'i danni, malihii aan malaynaynay inuuna ka bogsanaynin ayaa noqday mid oo gaf ah, ayuu noqday oo khalad ah, saa darteed way asaxaysa. walaa yujziu gudi maayo shiraa'u qariibin, mid isaga u dhow soo iibsigii, biniyati kafaaratin, kafaaro niyadeed uu kusoo iibsado. qariibka waxaa loo jeedaa asal iyo farac, waxaa dhashay iyo wixii ku dhalay. marka waalidkii oo addoon uu soo iibsaday, yani meesha waxaa ku jirta masale kaloo una kuu sheegin oo ah, waxaa jirta xagga cidqiga, haddii qofku asalkiisa uu soo iibsado wuu xoroobayaa markiiba, haddii uu faraciisa soo iibsadana wuu xoroobayaa markiiba, isagoo aan xoraynin isagubu xor noqonaya, oo labadaas isma gumaysan karaan. saa darteed ninkiibaa wuxuu soo iibsaday shiraa'u qariibin, mid isaga u dhow oo ama asal u ah ama farac u ah ayuu soo iibsaday oo addoona, biniyati kafaaratin, ilan iibkaa uu yidhi ishtaraytu uu yidhi ayuu ku xoroobayaa. markuu iibsanayey sidaasuu ogyahay, biniyati kafaaratin buu kusoo iibsaday, inuu kafaaradii u noqdo, maadaamuu laba jeera buu xoroobayo, meeshii addoon intuu soo iibiye uu ku xoreyn lahaa buu yidhi kani soo iibsoo kafaaradiina ha kuu noqdo. taa iyadu ma asaxayso, maxaa yeelay xoroobidda uu xoroobay waa miduu mutaystay jiho kale oo kafaarada aan ahayn ayuu u mutaystay. saa darteed waxay la mid tahay asalkaagii oo aabbaha iyo hooyada oo nafaqadoodu ay kugu waajibtay, oo deedna kafaaradii kugu waajibtay, cuntadii aad bixin lahayd ee masaakiinta aad siin lahayd iyagii aad siisay oo aad u niyootay, kafaaro aad u niyootay, taa ma noqonayso. maxaa yeelay ilan iyagu waxaad siinayso waajib gooni oo ay kugu lahaayeen buu ahaa, tanna waa sidii oo kale wey. walaa ummi waladin, walaa cidqu ummi waladin, waladka hooyadii in la xoreeyana ma asaxaysa, iyo wadii kitaabatin, kitaabo mid u saaxiiba, kitaabada oo saxiixatin oo saxiixa. labadana waxay u baahan tahay horta in lagu fahansiiyo. ummu walada waxaa la yidhaah, haddii hadda addoon ma jireen, waqtigii sheekhu kitaabku qorayay dee badnaayeen raxmatullaahi tacaala calayhi, marka saa darteed buu u qoray oo axkaamtooda aada loogu baahnaa. ummu walada waxaa la yidhaahdaa addoon aad adigu leedahay oo aad ka ilmo dhashay ayaa ummu walada la yidhaahdaayo, markuu ninku dhinto horay ka xoroobaysaa, marka iyadu xornimo ayay xaq u leedahay oo inay maaragtay ay xorowdo markuu dhinto. dii kitaabatin saxiixatinna waxaa loo jeedaa
addoonka la yidhi haddaad intaa ii keento xor baa tahay oo shuruudii oo dhanna la sameeyey, kaasaa waxaa la yidhaahdaa mukaatab ayaa isagana ayaa la yidhaahdaa. oo isaguna markuu wixii guto horuu ku xoroobaya. saa darteed labadaa hadduu xoreeyo ninkii kafaarada lagu lahaa midkood hadduu xoreeyo kafaaradii u niyoodo ma noqonayso, kafaaro uma noqonayso. maxaa yeelay xornimada waxay u muteen jiho kale oo jihada kafaarada aan ahayn ayayba u muteen inay ku xoroobaan. walaa ummi waladin, walaa cidqu halkaa soo geli, walaa cidqu ummi waladin, umma waladadiisa inuu xoreeyo, wadii kitaabatin, kitaaba mid u saaxiiba, kitaabada oo saxiixatin oo saxiixoo shuruudii oo dhan leh inuu xoreeyo intuuna weli cajizin, inuu xoreeyo oo biniyati kafaaratin uu ku xoreeyo u gudi mayso. hadduu ku dhawaaqo wuu xoroobayaa laakiin kafaaro uma noqonayaa. wayujziu waxaa u gudi mudabbarun kii la dibdhigay, wa mucallaqun midoo la xidhay xornimadiisa bisifatin sifa lagu xidhay. mudabber waxaa la yidhaah addoonka la yidhi markaan dhinto xor baa tahay ayaa la yidhaha mudabber, kii la dibdhigay weeye oo yacni cidqigiisii baa la dibdhigay. mucallaqun cidquhu bisifatinna waxaa la yidhaah addoonkii la yidhi xornimadiisa lagu xidhay sifo, haddii qudus la xoreeyo yuhuudda laga xoreeyo xor baa tahay buu yidhi. kasoo qaad maalan allahuma salli calaa maxamed, marka haddii sifadaa la helo horuu ku xoroobaya. labadaa iyaga, kaa mudabberka ah iyo kaa mucallaqun cidquhu bisifatina haddii uu xoreeyo oo kafaaradii uu u niyooda way noqonaysaa. maxaa yeelay dee labadan hadda inuu ku tasarufo asaxayso uu iibiyo iyagoo sidaas ayaa asaxaysa. saa darteed way u noqonaysaa. fa in araada hadduu doono ninkii meeshan marka muxuu ka wadaa, marka aan leenahay waa mucallaqun, aan kaa xumeeyey allah yaa rabbi aan kugu celiyo, mudabbarun waa sidiisa maya waa saxanahay, wa mucallaqun cidquhu bisifatin ayaa asix baynu nidhi. laakiin wuxuu meesha ka wadaa allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed, waa haddii cidquhu bisifatin aan kugu celiyo suurada. matalan kasoo qaad sidii aynu tusaalaynay, wuxuu yidhi haddii qudus la xoreeyo ama ay xorowdo xor baa tahay buu hadda ka hor yidhi. isagoo sidaa yidhi baa kafaaro lagu yeeshay. kafaaradii dihaarka anti calaya ka dahri ummi, naagti intuu yidhi ayaa kafaara ku waajibtay. addoonkii sifadiisa lagu xidhay cidqi xornimadiisa lagu xidhay sifo, hadda inuu xoreeyo uu yidhaahda maalan actaqtuka can kafaaratii, kafaaradaydii baan kaa xoreeyey inuu yidhaah taasaa asaxaysa. amaa inuu ku xidho sifadii xidhnayd, sifadii uu ku xidhnaa un inuu u bedelo, sifadii uu ku xidhnaa un inuu u bedelo kafaaro, taa iyadu ma noqonaysa. marka taasuu sheekhu inoo bayaaminaya. bal hadda eeg, fa in araada hadduu doono ninkii isagoo addoonkii xornimadiisa sifo ku xidhay kadib ayaa wuxuu doonay jacalal cidqi, cidqigii inuu ka dhigo cidqi xornimadii almucallaqi ee la xidhay ee sifada lagu xidhay kafaaratan inuu ka dhigo. hadduu sidaa doono, hadda ka hor buu yidhi haddaad gurigaa gasho xor baa tahay, markaasuu haddana wuxuu yidhi gurigaa haddaad gasho kafaaradaydii baan kaa xoreeyey, isla iyadii un lam yujzi, taasi ma gudayso. lam yujzi cidquhu, qaarna waxay qorayaan lam yajuz oo ma banaano, markaa macnihii noqonaya. marka haddayn banaanayn ma gudaysay noqonaysa, waa isku mid. lam yujzi ma gudayo xoreyntaa uu xoreeyey, kafaaradii kama gudayso. maxaa yeelay wuxuu u mutay tacliiqii hore, xidhiddii hore uu ku xidhay ayuu u mutay. laakiin wuxuu heli karaa hadda inuu isagoon waxba ku xidhin uu yidhaahda actaqtuka can kafaaratii ayuu heli karaa. walahu waxaa u sugnaaday ninkii tacliiqu cidqin, xornimadii inuu xidho addoonka, tacliiqu cidqil kafaarati, kafaarada cidqigeedii inuu ku xidho bisifatin, sifa inuu ku xidhu heli karaa. waa masale sideeda isaga socota. markuu doonaya kafaarada inuu guto oo addoon uu xoreeyo, labada wuu samayn karaa. tanjiiz inuu gooyo uu yidhaahdo actaqtuka can kafaarati. wuxuu kaloo heli karaa baa lagu yidhi walahu tacliiqu cidqi lkafaarati bisifatin, kafaarada cidqi xornimadeeda inuu sifo ku xidho addoonkii uu xoreynaya ama addoontii uu ku yidhaahdo in dakhalti daara fa anta xorun can kafaaratii, inuu sidaa yidhaah. gurigaa haddaad gasho kafaaradaydii baan kaa xoreeyey. deedna sifadii haddii la helo gurigii qofkii uu galo kafaaradii buu ku xoroobayaa. taana iyadana way bannaan tahay buu sheekhu ku leehay.
wa ictaaqu cabdayhi walow wuxuu leeyahay ninkii ictaaqu cabdayhi labadiisa addoon inuu xoreeyo can kafaaratayhi labadiisa kafaaro. maalan laba kafaara lagu lahaa, kafaaratu qatli nin buu dilay si khada ah, iyo kafaaratu dhihaar oo tii hadda inoo dambaysayn kasoo hadlaynaya. labadaasaa lagu yeeshay, labadabana in addoon la xoreeyaa la rabaa. laba addoonoo uu leeyahay inuu xoreeyo oo sidan soo socota weliba uu sameeyo, can kullin addoonkii la arkaba labada kafaara uu ku xoreeyo. halkaa hadda u fiirso, walahu ictaaqu cabdayhi labadiisa addoon inuu xoreeyo ninkii leeyahay, can kafaaratayhi labadiisa kafaaro, kafaaratayhi kafaaratu qatliga iyo kafaaratu dhihaar isugu yimid. waa inuu yidhaahdo maalan can kullin, actaqtu can kullin mid walba oo labadan addoon ka mida waxaan ku xoreeyey labada kafaaro, nisfa daa addoonka niskii, wa nisfa daa iyo addoonka niskiisa kale ayaan kafaaradii la arkaba ka xoreeyey. labadii addoon ka soo qaada waa kuwa horteenna taagan. marka ninkii muuna odhanin addoonkanna kafaaradii dilkan ka xoreeyey, addoonkanna kafaaradii oo dhihaarkan ka xoreeyey muuna odhanin. ee muxuu yidhi addoonka niskii iyo addoonka niskii kafaaradii dilka, addoonka niskiisa kale iyo ka niskiisa kalena kafaaradii dhihaarka. saasuu yidhi. way asaxaysaa. maxaa yeelay kafaarada waxaa muhima addoon xora in la helo. marka laba kafaaraa lagu lahaa, laba addoonoo xoraa la helay oo ceebka saliima. marka ujeedadii waa la helay oo aayaddiisay ku dhawaaqday waa la helay. isagu ama haw kala nisqaado ama yuunu kala nisqaadin, yani waxba yani muhimtaasi maa. walow actaqa hadduu xoreeyo mucsirun ninoo caydha nisfayni laba nis oo laba addoon uu ku kala leeyahay, can kafaaratin hadduu uu ka xoreeyo, falasaxu sida qawiga alijzaau gudid weeye, in kaana hadduu yahay baaqiihimaa labada nis ee baaqiga ah xuran xor hadday yihiin. nin caydha ayaa laba addoon, addoonkana nis buu leeyahay, addoonkana nis buu leeyahay. markaasuu labadii kafaaro ayuu u kala xoreeyey. addoonkan allahuma salli calaa muxammad, markaasuu kafaaro dhade labadii kafaara oo dhan. addoonka nis buu leeyahay, addoonkana nis buu leeyahay. markaa laba nis weeye, laakiin isku hal addoon ma aha. kafaaradii dhihaarkee lagu yeeshay ayuu yidhi addoonka niskii aan lahaa iyo addoonka niskii aan lahaa ayaa waxaan u xoreeyey kafaaradaydii ayuu yidhi. way asaxaysaa, laakiin bishardi in kaana baaqiihimaa xoran, haddii baaqigoodu addoonka niskiisa kale iyo addoonka niskiisa kale hadday xor yihiin oo labadii nisa isagu uu lahaa uun addoonnimadu ay kaga baaqi ahayd, taa markaa wuu xoroobayaayo kafaaradiiba u noqonayaan. maxaa yeelay waxaa la helay allahuma salli calaa, waa lixusuuli listiqlaal almaqsuud. ujeedadii laga lahaa addoon xoreynta oo qofkan la xoreeyey inuu shaqadiisa u madax banaanaada ah ayaa dee meeshii laga helay. ama haddii niskooda kale uunan ahayn, uunan xor ahayn, waxa weeye markaa kafaaradii ma noqonayo. maxaa yeelay nisku isagu xoreeye mooyaan mid walba niskii kalema xoroobayo, ma saraayeynayo, kuma faafayo cidqigii. maxaa yeelay maadaama uu mucsir yahay, caydh uu yahay. hadduu muusir yahay oo maalqabeen uu yahay, hadal ma leh. niskooda kale ama xor ha ahaada ama yuun ahaanin. haddayna xor ahayn xitaa horay ka xoroobayaan, qiimihiina isagaa bixinaya. ama hadduu mucsir yaho qiimaha uuna bixin karin, wuxuu xoreeyey unbaa fulaya, wixii kale ma fulayaan. saas darteed kafaaradii ma noqonayaan haddii aynan labadooda nisee kale ayna xor ahayn. walow actaqa hadduu xoreeyo ninkii kafaarada lagu lahaa, addoon buu xoreeyey oo kafaaradiisii ku xoreeyey, biciwadin isagoo xoolo ka qaadanaya, lam yujzi ma gudayo can kafaaratin, kafaaro kama gudayo. wuxuu yidhi addoonkan baan kafaaradaydii ku xoreeyey $1 oo dushiisa ah, ama $1 oo hebelow adigu aadi siiso. ninkiina wuu aqbalay, kale ajnabiga ahaa ama addoonkiibaaba aqbalay. taas addoonkii wuu xoroobayaa, laakiin kafaaradii ma noqonayo. maxaa yeelay waa licadami tajarudilcidqi lahaa. waxaan yani aan u badhax la-ayn xoreyntiisa ayaan kafaaro keliya ahayn, quud kale oo adduun ayaa meeshii soo galo oo uu ka qaadanayo. intaa markuu sheekhu uu ka hadlay oo uu ka soo hadlay addoonkii inta la xoreeyey, xornimadiisa xoola laga qaatay ee kafaaro laga xoreeyey, xukunkiisu wuxuu noqonayo markuu masaladan ugu dambaysa kaga hadlay, walow actaqa biciwadin
lam yujzi can kafaaratin markuu yidhi ayaa wuxuu munaasab ahaan hadda halkan aan ka gelaynaa waxyaabo kaloo aan kafaaradii la xidhiidhin laakiin addoonka khuseeya oo addoonkii xoolo xornimadiisa lagu xidhay khuseeya ayuu meeshan ka gelayaa sheekhu munaasab ahaan. culimo badan baana sidaa ayaa sameeyey. wuxuu yidhi marka sheekhu walictaaqu xorayn bimaalin xoolo wax lagu xoreeyo ka dalaaqin furid bihi bilmaal wax lagu furay la mid tahay. haddii xoolo wax lagu furo way asixi jirtay, haddana haddii xoolo wax lagu xoreeyo way asaxaysaa weeye. oo nin ajnabiya uu ku yidhaahdo haddii uu yidhaahdo zawjadaada kun ku fur aniga dushayda oo deedna uu ku furo way asixi jirtay, kunkaana xaq buu u yeelan jiray. tanna waa sidii oo kale, addoonkaaga kun ku xoree aniga aad igu leedahay way asaxaysaa wey. falow qaala hadduu yidhaah nin ayaa nin kale ku yidhi actiq xoree umma waladika ummu waladadaada ilmahaaga midda hooyada u ahe addoonta ah xoree calaa 1000 kun ku xoree oo fa actaqa deedna uu xoreeya si degdega nafada cidqigaas ama xornimadaasi way fulaysaa. walazimahu ninkaa wax dalbaday ee ummu waladada in la xoreeyo dalbadayna waxaa waajib ku ah alciwadu bedelka isaga ee uu isku waajibiye kunka ah ayaa waajib ku ah. maxaa yeelay waa furasho uu soo furanayo qofka isagaa weeye. oo waxay la mid tahay khulucii ajnabiga ahaa dalliq zawjataka bi1000 calaya, xaaskaaga ku fur kun aniga aad igu leedahay way asixi jirtay. tanna waa tii oo kale weeye, waa furasho uu soo furanayo. wakadaa waxaa lamida low qaala hadduu yidhaah actiq xoree cabdaka addoonkaaga calaa kadaa waxaa ku xore oo uuna odhanin cannii iyo canka iyo waxba uuna odhanin, oo fa actaqa deedna kii kalena uu xoreeyo, iyadana waa la mid. fila saxi qawi haddaan qabanno cidqigii xornimadii way fulaysaa oo xor buu noqonayaa, ninkiina wuxuu mudanayaa wixii loo ballan qaaday. fila saxi qawi haddaan qabanno maxaa yeelay waa ummu waladadii oo kale unbuu la mid yaho waa furasho addoonkan uu furanayo. fa in qaala hadduu yidhaha actiqu xoree cannii aniga xaggayga ka xoree calaa kadaa lacagtaana ku xoree calaa kadaa yani calaa 1000 aw calaa 2000 ku xoree oo fa facala kii kalena uu falo cataqa addoonkii wuu xoroobayaa cani daalibi kii wax dalbaday ayuu ku xoroobayaa. wa calayhi dushiisana waxaa ah alciwadu bedelkii la magacaabay ayaa dushiisa ayaa noqonaysa. ninkiibaa wuxuu yidhi masaladu way isu yara eeg tahay. halkan eeg hadda wuxuu yidhi actiqhu cannii, meesha muxuu soo geliya cannii, actiqhu cannii yani cannii waxa weeye welihiisa anaa yeelanaya. marka taasi maxay ku dhici kartaa inuu marka hore intuuna xoroobin inuu milkigii adiga kugu soo wareego ayaa xaggaaga inuu ku xoroobo ayay ku noqon kartaa. marka hadduu yidhahda actiqhu cannii calaa kada fa facala cataqa cani daalibi, kii wax dalbadee lahaa xore aniga iga xore xaggiisa ayuu ka dhacayaa. kafaaradiisiina xitaa wuu noqonayaa haddii uu niyoodo. isagana ciwadkii baa lagu lehay. maxaa yeelay waxaa la qadarayaa sheekha inoo soo wadee allahuma salli calaa muxamed markuu inuu milkigiisii marka hore kusoo wareegayo, markuu kani xoreeyo saa ugu dhawaaqo inuu milkigii ilmidhiqsi uu kusoo wareegayo deedna uu xoroobayo. saas yani ayuu noqonaya. waa kana bal hadda dhegeyso. walasacu sida qawiga annahu ninkii wax dalbanayay ee lahaa addoonka xoree oo cannii ka xoree ninkii lahaa yamlikuhu addoonkaa wuu mulkinayaa, addoonkaa uu xornimadiisa dalbayo wuu mulkinayaa caqiba lafdil ictaaq, xoraynta lafdigeeda bimacnaa ku hadalkeeda cidhibteeda ayuu ayuu mulkinayaa. markuu kii kale markuu yidhaahdo maalan kitaabka eeg actiqhu cannii calaa kada wuri moogta actiqhu cannii calaa kada, dee markaasuu kii kalena wuxuu yidhi actaqtuhu canka ayuu kii kalena yidhi. ereygaa actaqtu waan xoreeyey markuu sidaa uu ku dhawaaqo cidhibteeda ayuu kani mulkinayaa. walasaxu annahu kii daalibka ahaa yamlikuhu addoonkii wuu mulkinayaa xorayntiisa la dalbayay caqiba lafdil ictaaq, xoraynta lafdigeeda cidhibteeda kaa kale uu ku dhawaaqee markii hore lahaa ayuu mulkinayaayo uu kusoo wareegayaa. maxaa yeeley xorayntaasa ilan milkigii raraysa ilan cannii baa layihi.
ثم markaa ka bacdi isla ilmidhiqsi yactiqu calayhi cala daalibi kan dalbanayay in la xoreeyo ayuu ku xoroobaya. yacni murti meesha waxaa ku jirta fii zamanayni latiifayni muttasilayni bilafdi اlictaaq, yacni laba waqti oo yar yar inagu ayna qiyaasi karin, ilaahay uu qiyaasi karo. oo markuu ninkaasi yidhaahdo actaqtu, addoonkii la yidhi actiqhu canii bialfin, actaqtu markuu yidhaha cidhibteeda ayaa waxaa isdaba socda laba zaman oo latiifa, bimacnaa yar oo inagu ayna qiyaasi karinoo midna uu addoonkii ninkan milkigiisa ku gelaya isla markiiba ilmidhiqsiga kalena uu xor ku noqonayo. uma yactiquhu yamlikuhu caqiba lafdi lictaaq uma yactiqu calayh, wuu ku xoroobaya isla markiiba isagoon xoraynin. ka soco marka waman malaka ninkii mulkiya cabdan addoon aw thamanahu, meeshan marka maxaan ka galaynaa yaanu ku daalinin. kafaaradii sheekhu inooma taabanin weli, khislooyinkeedii waxaa ugu horeeya addoon la xoreeyo. marka addoonka aayadda waxay tidhi ninkan addoon heli karin, faman lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayn, suuratu mujaadila. ninkii aan heli karin addoon uu xoreeyo 2 bilood buu soomayaa baa layidhi. ninkee heli kara, ninkee baanse heli karin? sheekha dhegayso. waman malaka ninkii mulkiya oo milkigiisa uu yahay cabdan addoon baa milkigiisa ah, aw thamanahu ama lacagtii la siin lahaa ayaa milkigiisoo uu haystaa, kaasoo faadilan lacagtaasoo ka badan can kifaayati nafsihi, lacagta iyo addoonkuba way ka badan yihiin can kifaayati nafsihi, naftiisa wax ku filan iyo wa ciyaalihi caruurtiisa, nafaqatan nafaqa ahaan, wa kiswatan aradbax ahaan, wa suknan guri ahaan, wa aathaathan alaab ahaan sida weelashii iyo gogoshii iyo addoonka dheeraada ama lacagtiisiioo ka dheeraada. aathaadkaasoo laabudda minhu aan laga maarmaynin, alaabta ma ahata guriga lagu sharaxaya ti loo baahan yahay, iyo weliba dayntiisii. ka faadil a ninkii heli kara lazimahu waxaa ku waajiba alcidqu, inuu xoreeyaa ku waajiba. maxaa yeeley ilaahay wuxuu yihi faman lam yajid buu yidhi, markaa dee wuu heli karaa ninkii yacno ama lacag haysta ama addoonkiiba haysto, addoonkii oo intaa ka faadil oo ka dheeraada ninkaa wuu heli karaa weeye, oo markaa uma gudbi kara darajada labaad oo ah inuu 2 bilood soomo. walaa yajibu ma waajibo baycu daycatin, dhulkii in la gado, wa ra'si maalin wa baycu ra'si maalin, lafihii tijaarada in la gado, kuwaasoo laa yafdulu uuna ka badnayn oo uuna kasoo faadil noqonaynin, dakhluhumaa waxa kasoo gelaya ninka can kifaayatihi, wax isaga iyo caruurtiisa kifaayadiisa wax ka badan aan ka faadil ahayn inuu gado oo addoonkii uu u gado waajibkuma aha. ninkii addoonka inuu xoreeyo laga doonayay dhulkiisa oo beerihii uu lahaa inuu gado, taasi yacni waajibkuma aha. lafaha oo tijaaradiisa ra-sulmaal inuu gado, laakiin waa goorma? waa haddii dhulkaa waxa kasoo gelaya iyo lafaha waxa kasoo gelaya laa yafdulu dakhluhumaa, waxa kasoo gelaya oo dhulka kirada uu kiraynaya iyo kharajka kasoo gelaya iyo lafaha faa'iidada ka imanaysa haddayna ka badnayn can kifaayati. xataa hadduu geel iyo ari uu leeyahay oo markaa dheefta kasoo baxaysa kifaayadiisa ayna ka badnayn, cad iyo caano kifaayadiisa ayna ka badnayn, waxa weeye inuu markaa iibiyo waajib kuma noqonayso. walaa maskanin, baycu maskanin guri inuu gado, iyo wa cabdin addoon nafiisayni oo wanaagsan, kuwaasoo alifahumaa uu u dulmay, iyadana waajib maaha fil asaxi qawi haddii aan qaban. wuxuu ku jiraa guri uu muddo dheer ku jiro, laakiin haddii la gado guri kalena goynaya, addoonkii kafaaradana uu kasoo hadhayo, lagu kalifi maayo. alifahumaa maxaa yeelay mufaaraqatu lma'luuf mashaqatun baa la yidhaha, waxaad u dumantood baratay ood ka tagto waa mashaqo. marka saa darteed qofkii lagu kalifi maayo. addoon ayuu haystaa wanaagsan, oo haddii la gado 2 addoon oo kale oo midna u khidmeeya midna uu kafaaradii u xoreeya noqonayo, lagu qasbi maayo inuu gado. laakiin labadaba waxaa shardiga alifahumaa, haddii uu bartay oo u dulmay oo in badan haystay. maxaa baxay? guri uu meel ka dhistay laakiin uuna gelin uu uga jeedo uun kharash iyo wax, kaa waxa weye waxaa laleeyahay gad guri uu ku noqonayaa guri kaliya addoonkii maadaamuu noqonayo, dee gadidiisa wax dhib oo markaa ku jirta ma jiraa laleeyahay. wa shiraaun walaa yajibu, halkaa soo geli ma waajibo, shiraaun iibin biqabnin ziyaado inuu ka iibiyo. ninkii addoonkiibuu helay, lacagtiina wuu hayaa,
laakiin addoonkii waxaa lagu gadayaa lacag dheeraad oo qiimihiisa ka badan bigabnin bimacnaa biziyaadatin calaa thamani mithlihaa addoommaha lamidka ah waxa la siiyo lacag ka badan baa lagu gadayaa haba yaraatee kaana qofkaasi waajib kuma aha inuu gado eseegu yeelayaa wuu sugayaa soonkii inuu u gudbo ma aha wuu sugayaa ilaa uu ka helo addoon oo qiimihiisa jooga ilaa uu ka helo ayuu sugayaa waxaa lamid a qofkii xoolihiisa marka aan la joogin oo ay ka maqan yihiin kafaaradiina lagu yeesho isagana odhan maayo soon baan u gudbayaa ee wuu sabrayaa ilaa uu xoolihiisi yacni u tago wa adharu laqwaali qowlyaal midka ugu raajaxsan ee ugu qawisan ictibaarulyasaari taajirnimada in la fiirin weeye biwaqtil addaa'i xilliga kafaarada uu gudayo kafaarada laba xilli baa jirta xilligii qofka ay ku waajibtay oo anti calaya ka dahri ummi intuu yidhi naagtii horey uuna ka furin hadday kafaaratulqatli tahayna iyadana maaragtay uu qatligii uu dhacay waa xilligay waajibtay iyo waqtul addaa xilligan hadda uu gudayo marka goormaa la eegayaa ilaan qofku waxaa dhici karta waqtigii ay waajibaysay inuu taajir ahaa haddana uu faqiir yahay bilcaksina way dhici kartaa xilligee baa la eegayaa sida qawiga ah biwaqti laddaa xilliga la gudaya ayaa la eegayaa kafaarada maxaa yeelay waa cibaado oo bedel leh oo bedelkaasina jinsigeeda uun ahayn sida weysadii iyo tayamumkii oo kale sida salaada istaageeda iyo fadhigeeda oo kale saa darteed waxaa la eegayaa waqtul addaa ayaa la eegayaa waqtul wujuubka yacni lama eegayo sida raajixa waasa qowl kale laakiin muxuu leeyahay waqtul wujuubka la eegayaa maxaa yeelay waa nooc cuquuba ah weeye saa darteed waqtul wujuub baa la eegi oo waxay la mid tahay addoon baa zinaystay isagoo addoona markaasuu xoroobay waxaa la xadayaa xaddii markuu xoroobo kabacdi xadkii oo addoommada laga oofin jiray la xadayaa maxaa yeele markuu zinaysanaya addoon buu ahaa kaasi saasuu leeyahay qowl kaloo saddexaadna wuxuu leeyahay midka ugu adag waqtul wujuubka iyo waqtul addaha xilligii oo midka ugu qiimo badan ee ugu qaalisanayd baa lagu kalifayaa mid afraadna wuxuu leeyahay maxaankan kaa xumeeya ka saddexaad wuxuu leeyahay laga bilaabo xilligay waajibtay kafaaradu ilaa xilliga la gudayo xilligay ugu qiimo sarreysaa la eegaya midka afraadna qowl afraadna wuxuu leeyahay awal waqtul wujuubka iyo waqtul addaha ayaa la eegayaa midka ugu qaalisan inta udhexaysana waa la iskaga jeedsanayaa marka afartaa qowl baa ku jirta marka ka ugu raajixsan buu sheekhu yidhi wa adharu laqwaali qowlyaalka ugu qawisan ictibaarulyasaari taajirnimada addoonkii inuu heli kariyo inuuna heli karin ayaa la eegayaa biwaqtil addaa'i xilliga uu gudaya kafaarada ayaa la eegaya fa in cajaza haddaba ninkii kafaaro gudanayay ee mudaahirka ahaa ee naagti ka dihaartamay hadduu awoodi waayo can cidqin xorayn uu addoon xoreeyo hadduu awoodi waayo saama shahrayni 2 bilood buu soomayaa mutataabicayn oo isku xigta maxaa yeelay waa lil aayati aayadda ayaa saa kusoo aroortay fa siyaamu shahrayn mutataabicayn bilhilaali oo bilaha dhalashada bilhilaali oo bisha dayaxa ah lagu tirsanayo haddii bilowga uu ka bilaabo bilowgeed bishaasi ama 30 ha noqoto ama 29 ha noqotee wuxuu ku soomayaa uun bisha dayaxa bisha kalena iyadana saas ayuu ku soomayaa maxaa yeelay bisha oo hilaalka midda xagga sharci ahaan la eegayo iyada ayaa waxaa kaloo ninkaa waajib ku ah inuu habeenkii niyoodo sida ramadaanka soonkiisa habeenkii loo niyoodo oo kale habeen walba inuu niyoodo iyo inay niyadiisu markuu addoonta waayey kabacdi inay noqotee ka hor yacna aynan noqonin ayaa la doonaya matniga eeg biniyati kafaaratin inuu ku soomo kafaara niyadeed inuu ku soomo habeen walba ayaa waajiba fii kulli leylati jihadeeda yuuna cayinin be biniyati kafaara laakin biniyati lwujuub hadduu yahay biniyati sowmi lwujuub taa ma noqonayso maxaa yeele soomka nadarka aba soom oo waajibuu noqonaya marka biniyati kafaara ayaa ku filan ama kafaaratu qatli ama kafaaratu dhihaar midkay doonto iyadoo ha noqotee biniyati kafaara inuu ku soomo yacna ayaa ku filan walaa yushtaradu lama shardiyo niyatu tataabuci israacraac inuu niyoodo fil adhari qawi haddii aan qabanno 2 bilood markuu maalin walba soomayo tataabuc inuu niyoodo shardi maaha maxaa yeelay tataabucu israacraacu waa shardina gooni looma niyoodo oo waxay ka dhigan tahay istiqbaalu lqibla markuu qofku tukanayo salaada waajibka ah qiblada inuu qaabilo dee waa shardi min shuruudi salaad
wamaca dalika in la niyoodo waxba looma baahno salaadun baa in la niyooda ay tahay tanna waa tii oo kale fain badaa haddaba ninkii hadduu bilaabo soonka fii athnaa'i shahrin bil dhexdeed hadduu bilaabo xusiba waa la xisaabi ashahru bisha oo bacdahu bishaa ka dambaysa bilhilaali dhalashadaa laga xisaabi wa atama wuu dhammaystiri alawala bisha horena min athaalithi bishi saddexaad buu ka dhammaystiri 30 soddon buu u dhammaystiri hadduu bil bilowgeed bilaabo horaan usoo sheegno dhib male 2 bilood mu soomaya laakiin hadduu bil dhexdeed uu bilaabo bisha dhexdeeda uu bilaabay kasoo qaad bil oo 15 ayuu habeenkii 16 ay ahayd buu bilaabay allahuma salli calaa muxamed bisha 15 kaasuu ka soomaya bisha dambe bilashadeedana bilashaduu ka tirsanayaayo markay bisha dambe ama 29 ha noqoto ama 30 ha noqoto iyada bil kaamiluu soomaya bisha saddexaad oo taa ka dambaysana wuxuu ka dhammaystirayaa bishaa hore intii ka tagtay kolba ama 10 ama 15 kolba intii ka tagtay ayuu ka dhammaystirayaa oo markaa maxaa yeelay iyadii hilaalkii suurtagal ma aha maadaama talfiiq ay tahay mid la isu gurbinayo oo bilo la isaga geynay wayafuutu wuu tegi attataabucu israac raaci bifawaati yowmin maalin tegidii oo 2 bilood ka mida walow maalinka ugu dambeeyaba ha noqdee bilaa cudrin cudurdaar la-aan uu noqdo cudurdaar la-aan uu ka tago tataabuci wuxuu ku tegayaa hal maalin kafaaradii waxaa la yidhi 2 bilood ha soomo hadduu addoon una xoreyn karin طبعا xilligan aan joogna dee addooni ma jirto waxa weeye waxaa ugu soo horeynaya inuu 2 bilood soomo fa siyaamu shahrayni mutataabicayn hal maalin hadduu u dhexeeyo walow maalinka ugu dambeeya 2 bilood maalinka ugu dambeeya hadduu bilaa cudrin matalan kasoo qaad niyadii uu halmaamo oo kale haddii ay ku dhacdo oo maalinka ugu dambeeya una soomin 2 bilood uu soomay waxba kama jiro kafaara ma noqonayso waxba kama jira waxaan ka wadnaa haddii uu u kasayna waxbaba kama jiro oo ajir xitaa kama helayo maxaa yeelay isagaa wixii oo dhan kharaabiyey haddii uuna u kasinna waxa weeye sunnay u noqonayaan laakiin kafaaradii ma noqonayaan kow waa inuu kafaaradii hadda ka bilaabo allahuma salli calaa muxamed maxaa yeelay binasi alaaya fa siyaamu shahrayni mutataabicayn tataabuc 2 bilood oo isku xigto habeenna u dhexaynin arrin adag weeye saas arrin adag weeye allahuma salli wakadaa waxaa lamida bimaradin xanuun dartii hadduu uga tago filjadiidi qawi haddii aan qabanno maalin buu afuray maxaa yeelay xoogaa wuu qandhado wuu xanuunsaday waa baaba-ay wixii oo dhan tataabucii wuu tegay waa inuu kow ka bilaabo maxaa yeelay dee waxa weeye xanuunka waxaa laga hadlayaa xanuun oo uu maaragtay ma aha mid uu suuxayo xanuun oo dee soonkuna uu dhibayo laakiin oo hadduu soon caadi oo ramadaan uu noqon lahaa ruqso uu u yeelan lahaa inuu iska afuro kan maya kani waa kafaaro uu ka duwan yahay hadduu afuro bimaradin uu afuro filjadiidi haddii aan qabanno maadaama uu soomi karayo dhibaataba ha soo gaadhe tataabuci meeshuu ka baxaya qadiim wuxuu leeyahay war maya maaragtay hay buu leeyahay laa bixaydin caadadii maya oo caadadiisay ku suuroobi waxaan kasoo hadlaynay nin yidhi anti calaya ka dahri ummi oo mudaahirku qofku dee waa inuu nin yahay saasan yani aan kasoo hadlaynay haddana laa bixaydin waxaa laga hadlayaa kafaaratu qatliga iyo kafaaratu dhihaarka labada waa iskaga mid xagga soomka shahrayni mutataabicayni waa iskaga mid marka haweenaydii ayaa waxay soomaysaa kasoo qaad waxaa lagu suuraysan karayaa haweenaydii baa waxaa lagu yeeshay kafaaratu qatli yani khada ayay qof yani ayay u dishay si kama ah markaasay deedna dee addoon la xoreeyana ma jiro marka caadadii ilan sida qaalibka ah bishiiba dumarka marbay ku dhacdaay lama odhanayo caadadii way goynaysaa laa bixaydin caadadii maya oo iyadu tataabici ma goynayso oo markay ka daahir noqoto halkiibay kasii wadaysaa maxaa yeelay dee bishii sida qaalibka ah dumarku khaali kama noqdaan caadada marka haddii lagu kalifo ilaa intay ka quusanayso waayeel ka noqonayso inay sugto taasi dee khatar bay ku tahay iyada khatar ayay ku tahay saa darteed iyada way asaxaysaa laa yukalifu allahu nafsan wakadaa junuunin bijunuunin waalidii baa lamida oo qofkii ninka ahaa ee kafaarada soomayey hadduu waasho oo waali ku timaado oo maalin waali ay kaga tagto tataabuci waxba uma dhimaysa cala almadhabi qawi haddii aan qabanno maxaa yeelay wax khiyaarkiisa ama ah oo wax isaga khiyaar daradiisa ku yimi fain cajaza hadduu kari waayo ninkii
cani soomi soomkii hadduu kari waayo oo marka horeba uuna bilaabinba oo limaada biharamin waa yeelnimo waa da lagama yaabo inuu soomo ow maradin ama xanuun qaala alakharuuna culimada intooda badan waxay dhaheen ay ku qaydeen xanuunka laa yurjaa zawaaluhu xanuun aan la rajaynaynin inuu zuulo alakharuuna nidhi culimada intooda yarna waxay yidhaahdeen xanuun habel la rajaynaya inuu zuule laakiin ilaa 2 bilood inuu haynayo uu daa'im yahay unbaa shardiga ayay aqalkuna ayay yidhaahdeen hadduu sidaa uga cajiza marka ow laxiqahu ama qofkii uu haleelayo bisawmi soomka darteed mashaqatun shadiidatun hadduu qofkii soom is yidhaahdaba dhibaato ayaa haleelaysa ow khaafa qofkii hadduu ka baqayo ziyaadata maradin xanuunku inuu ku kordho oo dhakhaatiirtii baa tiri haddaad soonto xanuunkaa kugu kordhi kafara qofkaasi wuu kafaara gudanayaa allahuma salli calaa muxamed kafaaradii dihaarka biidcaamin quudin 60 uu quudiya miskiinan oo miskiin maxaa yeele waa lilaayati fa idcaamu 60 miskiina wax ka yar yahna lama ogolo hadduuna hal miskiin 59 hadduu quudiyo quudintaana waxaa laga rabaa sheekha inuu sheegi doono ma aha in cunto la siiyo waa in la siiyo raashinkii yani waa in nuskiilo wax ka roon oo maaragtay xabadii ah in la siiyo iyagu ha karsadeen ow faqiiran ama faqiir miskiinka aayaddaa sheegtay faqiirkuna dee wuu kasii xaal xun yahay laa kaafiran gaalkii in la quudiyo maya inay muslim yihiin baa shardi ah walaa haashimiyan nin oo reer bani haashima qabiilka nabigu ka dhashay wa muطalabiyan mid oo banuu muطalib ka dhashay waa jilibka nabiga ilma adeerka yihiin kuwa aan ahayn 60 muddan 60 miskiinan 60 muddan 60 mudku waxa weeyaan 600 garam qiyaasta ugu badnaan 600 garam nuskiilo iyo 100 garam weeyaan waa inuu marka 60 muddan yani likulli waaxidin muddun in la siiyo taa yani ayaa waajiyay maxaa yeelay liannahu saxa fii riwaayatin 60 muddan inuu yahay ayaa riwaayo ka asaxday nabiga wa saxa fii ukhraa 60 saacan riwaayo kalena waxay sheegtay 60 saac oo saaca ka badan saaci la arkaba waa 4 mud wa hiya maxmuulatun calaa bayaani aljawaaz midda oo 60 saacan odhanaysa waxaa lagu xambaarayaa way bannaan tahay inuu saa u bixiyo yani waajib ma aha oo waa sunnay ka dhigan tahay maxaa yeelay labada xadiid isma nasakhi karaan saa darteed ayaa waxaa lagu jamciyey 60 saacanna waa sunno 60 muddan oo riwaayada kale ay sheegtayna waa waajib meesha ugu yar yani weeyaan kaasoo mimaa kii ah cuntada uu bixinayo yakuunu noqonaya fitratan zakaatu fidri noqonaya xaggan kaga soo hadalay zakaatu fidri waxaa noqonaya waxa weeye min gaalibi quuti maxalil mukafiri qofka kafaarada gudanaya meesha uu joogo quudka laga cuno gaalibkiisa waa inay tahay haddii bariis laga cuno haddii qamandi laga cuno haddii timir laga cuno waxa meesha laga cuno quudka laga cuno kiisa gaalibka ah sanada marka laysku celceliyo quudka laga cuno midka gaalibka u ah kaa wuxuu waa inuu yaho haddana daqiiq waa inuuna ahayna xabadii oo saliim ah oo nabad gashay sidii zakaatulfidriga waan ku soo marnay inuu yahay ayaa maaragta ayaa la shardiya hadduu ninkii marka intaa uu kari waayay see la yeelayaa oo 2 biloodna uuna soomi karin 60 miskiinna uu quudin karin see buu yeelayaa waxa weeye kafaaradii waa lagu lahaanayaa mar allaala markii uu awoodo arrin ka mid a arrimaha unbuu samaynayaa ma dhacayso waa dayn oo lagu leeyahay wey haddii isagoo lagu leeyahay uu dhintana taadee markaa in laga guday noqonaysaa waa dayn lagu leeyahay sida deymaha kaleba looga gudayo ayaa in looga guda ay noqonaysaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.